afayeenka xisbiga wadani ee Somaliland garyaqaan Barqad Jaamac ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Professor Yaasiin Maxamuud Xiir Faraton oo dalka dib ugu soo laabtay aanu marin nidaamkii karantiimeynta ahaa ee guddiga heer qaran ee ka hortagga xanuunka coronavirus ku dhawaaqeen. afayeenka wadani waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda Somaliland markii uu garoonka diyaaradaha ee Hargeysa ka soo degay uu toos u tagay xafiiskiisa iyo gurigiisa isagoo aan marin baadhitaano iyo karantiimeyn midna. waxana uu xusay in madaxda dawladda looga baahan yahay inay tusaale wanaagsan u noqdaan ummadda ay hogaaminayaan sida uu hadalka u dhigay. afayeenka oo hadda 12 Abriil warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa intaasi ku daray in bulshada Somaliland ay aad isu weydiinayaan sababaha in muwaadiniinta Somaliland ee dalka dibadiisa ka yimaada la karantiimeeyo. mas'uul xilka haya xukuumadana uu si toos ah shaqadiisa dastuuriga ahayd isaga galo isagoo aan karantiimeyn marin. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dhowr cisho ka hor ayuu magaalada yimid. madaarku ka soo degay gurigiisii buu tagay. إلهي سبحانه وتعالى وحلاه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نبي محمد ما دامه قاميها عليه الصلاة والسلام إسلامك يا مسلمين تقويهي تصالح ذو كفر ما ضحض وين تصالحه قامين موادين تضعوا النقطة الناس على دين ملوك موادين تودقك مدحدو وحمد سويدين يساعد sharciga xubin xukuumadda xilka haysana u saamaxaya inuu xafiiskiisa iyo xaafadiisa tago muwaadinku cashuurtiisa qaatana maxbuus laga dhigo. waxay isweydiin leeyihiin askartii ilaalinaysay wasiirka dirawalkiisii soo qaaday guriga geeyey wasaaraddu tagay dadkii joogay sidee loola dhaqmay. garyaqaan Barqad Jaamac Batuun waxa uu xusay in madaxweyne ku-xigeenka Somaliland laga sugayo sababaha mas'uuliyiinta xukuumadda ka tirsan loogu fulin waayay go'aamadii ay soo saareen guddiga heer qaran ee ka hortagga xanuunka coronavirus. mudane Barqad waxa uu intaasi ku daray in talaabadan wasiirku ay hagardaamo iyo halaag ku noqon doonto barnaamijkii wacyigelinta ahaa ee loogu hawlanaa sida uu hadalka u dhigay. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ahna gudoomiyaha guddidaas waxaan weydiinaynaa su'aasha muwaadinka maxaa maxbuus ka dhigay xubinta xil xukuumaddiina ka haysana maxaa mudnaanta siiyey waxa fiisadoodii xaafadahooga u tagaya rule of law mee sharcigi mee inuu sharcigu noo shaqeeyo Soomaaliya inuu sharciga ku dhaqano sharcigu shaqeeyo Soomaaliya mudane madaxweyne ku xigeen anoo ixtiraam ku haya adigoo gudoomiyihii guddida ka hortagga COVID-19 ama cudurka dunida caqabada ku noqday waxaanu eegi doonaa inaad noqoto madaxweyne ku-xigeenkii dalka oo sayidiciya oo saraynta sharciga ka shaqeeya inaad noqoto madaxweyne ku-xigeen saameyntiisa hogaamineed suuqyada lagaga sheekay jawaab bayna ummaddu idinka sugaysa. waxaana tani hagardaamo iyo halaag ku noqon doontaa inuu hirgalo barnaamijkiina wacyigelineed ee aad ummadda la hor imaanaysaan. ugu dambeyn afayeenka guud ee wadani waxa uu bulshada Somaliland u soo jeediyay inay ka fogaadaan goobaha dadka badan isugu yimaadaan si looga hortago faafitaanka xanuunka coronavirus. warda Amiin Xasan, codka Bariga Afrika. si aad joogto uga hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka Bariga Afrika fadlan iska diiwaangeli channelka YouTube-ka ama dooro bogagga baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka.